su-aasha lixaad aan ku weydiiyo guurka kadib wiilka iyo gabadha maxaa ku waajib ah guurka kadib waa guursatay adiga xaaska maxaa idin waajib inaad samaysaan maxaa waajib inooga wixii la fasax inaan sameyno sugi meeshaas ordin su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaa waa adiga garoob maa tahay على شكلك su-aalaa ku weydiinaya iga jawaab single ah su-aalaa ku weydii garoob maa tahay waan ogaa inaad single tahay garoob maa tahay group se u noqonaa maalintaada iga jawaabtaysa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحابة خالقة وأمر كلي فيديو كله عصو ما شاء الله إيوه my brother إيمان أمين enjoyها yes السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أصحاب تخروح بدن خالقة شرفتم مدن ما تكستوا دونك تجوتين waxa idintahay wanaagsan sidoo kale casar u taanay casar inuu tahay ayaga maxay u tahay ayag waxay u tahay ay ka sheegaan waxa idintahay wanaagsan aan markino anyway asxaabta ma sha Allah tabarakallah maanta u jeedin ani iyo walaalkayga Imraan waa isoo qabanay maxaa la soo wadaa wax la soo wada iyo warkay weyn waa ani ma ogin fahanti asaa inoo sheegi doono marka maxaa inoo haysaa Imraan enjoy ma sha Allah asxaabta maanta horta barnaamijku kan 10 su'aalood laakiin 10 su'aal dad badan ka dhinaa maanta waxaa ku fadhiyo my brother Iman kursi ku soo fadhiistay 10 su'aal dhanaa 10 su'aal way laakiin xabad ada ku weydiin ada fursad ku sin ana ay weydiinayso sagaal la ku weydiina okay diyaar waa marka ma sha Allah hadna su'aalaha ugu geli doonaa su'aalahan maanta telefoonka u diyaarsan maskaxda u diyaarsano Iman raadinaan kulleeyo marka waxa weeye ya saaxiibkiya ما شاء الله horta Iman Amin bal magacaagu saxan ka hortano ma faahay ani enjoy Iman Amin aan ku garana bal magacaagu saxan asxaabta la wadaag ani magacayga oo saxan waxa waaye Iman Amin Haji ما شاء الله Iman Amin Haji ما شاء الله ان asxaabta qaaliga ah sawini shay waa maqashin my brother Iman enjoy la u taqaan idinka laakiin magaciisa saxan waa maqashan Iman halkee ku dhalatay asalahan aniga waxaan ku dhashtay saaxiib dalka hooyo sidoo kale dalka hooyo waxaan ka sii dhashtay ama waxaan ku dhashtay degmada Xamarweyne ما شاء الله ريح مروين انت اني سلامينا انت idinka salaameena enjoy la kale enjoy waan fahanti ana dhana idinka soo baxay ما شاء الله Iman ay su'aalaha ugu galina sagaalka su'aalood maadaama su'aasha koowaad maadaama aan muslim nahay sideen ku dhisi karnaa qoys aan burburin maadaama aan muslim nahay sideen ku dhisi karnaa qoys aan burburin macna qoys aanan macna hadhow aan noloshiisa ay tinkiisa macnaha aan halaawi karnaa camal okay sideen ku dhisi karnaa marka ugu horeyso horta qoyska marka la dhisayo waxa fiican labada qofood ma aragtay inay isfahmaan ay xaqiiqda sida reality nolosha ay tahay inay isku wada sheegaan ay heshiyaan wax walbo qarsoonna inay isku wada sheegtaan markaas in la dhiso aan jeclaan lahayn laakiin intii wax la iska kharinayo ma aragtay oo wax gadaal iyo wax gadaal loo marinayo taas ani qoys dhismo ma kusay marka hore waxa la isfahansiyo waxa calooshi ku qarsan iyo wax qalbiga kharinayna hala sheego kadib hala dhiso ma sha Allah taas waxaan aaminsanahay inay dudumeen qoyskaasi okay su'aasha labaad ninka ragga intuuna guursan maxaa talo u baahan yahay ninka ragga intaanu guursan maxaa talo u baahan yahay sida adiga kale adiga guursan rabtaa lacala talo in lagu soo baahan tahay talooyinkaada bal meel wadaag talo lagu siin la macna wallahi ma talo ani ay siin lahayd anoo guursan rabo oo saaxiibka talo ana aan ku siinaa horta waxayna khanaysaa marka hore ma aragtay qofta adiga aad guursanaysid waa inaad ka dhigataa saaxiibtaada ugu khatarka san adduunka waa ma sha Allah koowde tan xigto waa inaad ka dhigataa gabadha adiga aad ugu jeceshahay adduunka mid ugu horeyso waa ayada ay naqataa tan xigto xaqeeda waa inaad ka soo baxdaa sidoo kale farxad waa inaad siisaa jacayl far badan waa inaad siisaa kalsooni waa inaad ku beertaa haddii kale tan waxaan ku leeyahay saaxiibba guursani talaan kaas oo siinaa haddii intaas aadan awoori ma aragti gabadha ku ciyaari saaxiibkii saas ma leedahay talana waa iga taan faanti oo ma la saadabe adiga weynay xita waa ku jirtaa maadaama sinka loo wanaano okay way waxa keenay in furitaanku inoogu bato ajaanibta uu ku yar yahay maadaama Soomaali aan ahayn inoogu batay furitaanka dhanka rag iyo dumarka marka la dhaho ajaanibtuna uu yar yahay maxaa keeni karaa isleeyahay horta su'aashaaniti hadii dib aan ugu noqdo wax yar sax horta Soomaalida iyo ajaanibta ma aragtay inta badan waxaa furunkooda badan ajaanibta furun ajaanibta aad u fara badan furunkooda sababtoo aniga wadanka Malaysia markaan imaanay wax leen aaminsanahay bis in ay dalka Soomaaliya ama wadankayga aniga aan ka soo jeedin ay furunkeeda ma aragtay
ay fara badan tahay laakiin marka aan dalkaan imaaday gawar walba waxay leedahay ani waxaan ahay group garoob wallaahi bilahi tallah waxaa ii caddaatay in soomaalida maaragtay furiinkooda sidaasi dhan ay u badneen صح laakiin anyway sababaha furiinka keentaa waxay tahay labada qofood maaragtay isfaham waa inay dhexdooda timaado sidoo kale haddii ay dhacdo in ay dhexdooda sheedhaan soo gasho taasitina way keenaysaa sidoo kaleeto waxaa keenaya in labadaasi qofood ay kala tagaan qof bini aadam oo xaasnimo ku jirto in ay rabin macnaha qofkaas in ay rabin qoyskaas isku faraxsan in ay iskala geeyo kaas qofkaasi camal jiri karo in as qoyskaasi iskala geeyo furiinkan taas way imaanaysaa sidoo kaleeto aniga furiinka horta wax yareynaa ama wax oo xogeer furiinka yareynaa waxa ay tahay labada qofood marka hore waa ina ayaga hadalkooda ay isfahmaan sidoo kale qof kale haddii hadal sheego hadalkooda dhan inay iska dhegatiraan macnaha understand labada bis inuu ku saabsanaa yes hadalkooda iyo wixii waxooda ma aragtay inaa ayaga private su'aal Sax. markaasi furiinku uu yaraanaa marka aniga waxaan dhihi lahaa soomaalida furiinku waa ku yaryahay oo ilaahan saasaan ugu haysa ilaahay sadan uu hayo ilaahay wixii garobna ragga u sahlo ma waxa waaye garoob horta nabiga u duceeyay fahanti Sax. garoobyaalkeena waxa waaye nabiga haddii marba ducadooda haysatiine enjoy atiin don't worry anaga oo dhan aan idin joogno okay waayahay su-aasha shanaad sidee buu saameyn u yeelan karaa dhaqaalaha guurka soomaalida aan kuu sidee buu socodiyo dhaqaale ugu yeelan karaa guurka sidee buu saameyn ugu yeelan karaa dhaqaalaha macnaha for example waa qofaa guursanaya ama saaxiibkaa guursanaya dhaqaalo ku koobanna ma haysto macnaha uu guurkiisa ku dhiso Sax. marka sidee saameyn ugu yeelan karaa dhaqaalahaas horta baraada horta mid haddii la sheego xaqiiqdaa waxay tahay waddanka anaga aan ku noolnahay iyo lacagta anaga aan isku guursano is different ma fahmaysaa sax, runtaa ka sababtoo hadlaysaa. ah Sax. waddankeena lacagta lagu shaqeeyo iyo gabadha lacagta lagu guursanaayo ama waddankeena lacagta ka jirto iyo gabadhaha lacagta lagu guursanaayo different waa sax sababtoo anaga waxaan isticmaalnaa waddankeena waxaa laga isticmaalaa shilin soomaali Sax. qofka hadduu waa shaqeynaa sidoo wuxuu ku shaqeynaa shilin soomaali Sax. sax marka gabadhan waxaa lagu guursadaa $10,000 $10,000 marka haweer waa badan tahay waddankaas ma kasoo galaayo ma fahanti Sax. marka ana waxaan dhihi lahaa xogeer gabdhaha guurka xogeer alnusqaamiyo sababtoo ah waddankeena sidaasayta keentay qofka waddanka ku noolne in aas guursado aad iyo aaday u adag tahay ilaa maayana qof maraykan joogo 10,000 agtiisa wax ma ka Maxaa aan ka muuqan? ilan dollarkiya agtiisa waddankaasaaba laga isticmaalaa Sax. marka the way oo soomaalida dadka Dhaqaale soomaali u ku yeelan nool kara saas waay. yes ha Maasha Allah, dhibaatada okay. jirtaa taasi tahay su-aasha lixaad aan ku weydiiyo guurka kadib wiilka iyo gabadha maxaa ku waajib ah guurka kadib waa guursata adiga xaaska maxaa idin waajib inaad samaysaan maxaa waajib inooga wixiina fasax inaan sameyno sugi meeshaas u ordin aday weydiismo maya saas kama wen Eh. maxaa ku waajib macnaha waxaan ka wadaa in la isfahmo oo macnaha nolosha hor loo sii wato camal aan ka hadlaya ma oye qaab kale oo fikirta maayo maxaa ku waajibaya dhaada magtaade wixii isku guursada la waajibka ma qaldana haddii qaldana sax maya waa saxanta misalkaasaan ku qaadan marka maasha allah su-aalaha walaalkii horta intaas aan uga soo gobo laakiin su-aalo normal hadda weydiinaya su-aalahaas waxaa personal life ay ahayd iyo si macnaha guurka dhaqaalaha uu anagu noo haysto dhankeena Sax. okay aan usii gudbin markan iimaan haddii loo maan talxiis u bax su-aasha todobaad waay talxiis u bax waddan haddii waddan ka aadleed maanta horta su-aashaanayt isweydiima u baahan Aye, sababtoo mar walbana waa dhahaa aye. ani waxaan aadi lahay waddan dalxiis hadan aaday Maldives Maldives waa meesha ugu talxiis macaan be meeshaasaan ugu jeclaa sababta aan ugu jeclaa waxay tahay keliya dhismaheeda iyo quruxdeeda ma aha baddaaseti qaabka ay u dhisan tahay le waa bis meel kale maga jeclaan badda le ma jecla anaga baddana ma agtida maya badeena waxa waaye way qurxanta ani ba ogaad Sax. laakiin xoogeer dayactirkii iyo wixii yaa kama faham decorationkii laakiin wax haddii dayactirkaas is imaado sax waddan kale anaa had runta kuushaha fak of aan dhahaa soomaalila iyo cadad waa Masha kufaanaa Allah. ma fahanti waa kufaanaa soomaali saaxib soomaali hanoo laabto anoo laabta yes Masha su-aal kale Allah. weydiinays maa jira okay saaxib hal xabaan ku weydiina hasha kalena adaa qaadanaa weydiinaysa Aye. hashan ku weydiina waxaa waaye fanaaniinta yaa taageertaa fanaaniinta yaa hesiis badanaa dhegeystaa mararka qaar markaad enjoyta ma aragto oo youtube videogiisa aad samaysato oo iska nasanayso oo kale markaad raagsan qaadanayso oo iska nasanayso oo kale heestee dhegeysataa fanaaniinta jecesha horta fanaaniinta soomaalida ani waan taageersanaa sax you know marba markii kasii dambeyso fanaanaa soo baxo fanaana soo baxo fanaankii Oo soo hit baxo haddana. oo ugu shidan aan markaas ani ku haystaa Sax. laakiin inta badan fanaanayaalka aan zaa'id ku dhageystaa waxay tahay hal ilow ma dhihi kari sababtoo halna ma ugo'i kari way badan yihiin Sax. waxaa kamid tahay sharmaboya ku Sharma Boy. sidoo kale khadarkeeyo dayaxdal nuurshe adi waa tirina haddii loo maxan bk
inkastoo hadda fanka iska baxay oo Sax. xooyar gadaal asu noqday ma hore u socday sidoo kale waxaan kaloo dhageystaa fanaaniinta inta badan waa dhageystaa laakiin intii isbuucan waxaan zaad u dhageystay maxamed BK khadar keeyo sharma boy iyo dayaxda nuurje biki kadano dambi u kordhinaysaa hor u socde ما هور وصعب هست ACيسا معنا سحبه عدكيسا معنا هيسيسا هيسل دانجر يس ها أنا أنت أسوق كويستان سؤال شو قدامي هذا يودينيس فرصة أوكي لو مقدي كتار اوكي لو هاي حسنا أوكي سؤال شو بقول رسم كويدينا حوا هذه قرب ما على شكلك سؤالك ويدي جواب سينجل سؤالك ويدي قرب ما تهي وأنا أوجي أنا سينجل تهي قرب ما تهي قرب سأقول نقنا ما جواب دي سؤال شديد قرب مي مع ولا سؤال قدنا يودينه ماي واسحنا قرب مي برا سان قرب نقنا ربي لا يدي ماي نمك حتى قرب ناخذنا ما نكرك كان كمل شيء قرب سعجي هذا كان بعرمية ما كان نرك لو مش شيء نقربها ها اوف كورس قرب ما معناه waxaan ka wadaa guur ma soo martay taas ha adlis su'aalaas la guur ma soo marin laakiin قرب ma tayo isgelin oo ko isgeliyahay ma تصعد martay ma kumaad okay su'aash kale aan ku weydiinaa waxa waaye sanadkay jecshayna guursatay maadaama khaangaar aad tahay isku baaluqdaado dhan adin isfiirsi ma kan jirna ma ada igma ade in arta ma isku malasaade dirkan isku sirin saaxib konti lama sana ku jirtaa fiis karoon allah ani ana la u jagnana ado garka aad sanadkay guursanayay okay hadda waxa lagu jiraa 21 lagu jiraa yo ani guur hadaan dhaho waxa weli ma qorsheyn laakiin 2025 25 inta waan jawaabo عمري مكو يرى هذا بدي كورس وين 25 كايس كورس اللي كان انا جدا اوكي ما شاء الله وتنبه سؤال انا كويدينيا هل كان ما هل كان مع سلامه هل كان مع سؤال لي وضعه هل كان مع سلامين هل كان هرتو waxaan ka salaamo mas waxaan ka mac salaameena مع السلامين ama ka salaami labadaba okay labadaba horta dhamaantiin waa idin salaama meel kasto adduunka aad ku joogtiin asxaabtana daawanayo sidoo kale hooyadeeda macaan sidoo kale beebideeda quruxda badan sidoo kale aabihayga macaan dhamaan familkeeda iyo familkeyga inta idinka salaama one love idin jeclaa dhamaan Soomaali weyne one love idin jeclaa ku dhigeen ma sha Allah hadda muuqaalkan inta ku sugeynaa ismo muuqaalkan aan ku soo gowgeeyna gorab ma tuu dhamaanta laakiin waan ka arjiran doonaa dima mar muuqaalka xiga intaan kulmana xaqiiqdiina bas bas baraqay caafimaad insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh